ayaa lay jeediyay eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga abaarso waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga abaarso waayahay waxay yidhaahdeen caddaymaannu ku haynaa caddaymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay yidhaahdeen waa waalidiinta dugsiga abaarso oo u taagan inay yihiin marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay marag iyo dhibanayaal marag iga dhana iyo dhibanayaal say isu qabanaysaan anigu ma garanayo qofku dhibano gartay laakiin marag baan kugu noqonayaa dhibana kiisuu ka yahay waa lay keenay dadkaas waxa kaloo lay keenay caddayn waxa lagu yidhi muuqaalkii aad yani ka jawaabaysay ayaa caddayn ku ah iyo baadhihii waxay ga qorayaba intaasaa caddayn ku ah aniguna caddayntaydii baan keenay waaya waxaan anigu caddayn aan u keenay aan caddayn ka dhigtay aayadaha qur-aanka kariimkaa ee ka hadlaya inaanay gaaladu wanaag la doonayn muslimiinta wax khayra oo wanaaga inaanay la doonayn baan caddayn u keenay sababta waxaa laygu eedaynayaa dee waxaad gaaladii baad ku tidhi muxuu ahayaa wanaagina lama rabaan anna waxaan idhi aayadahaasaa caddaynaya inaanay gaaladu wanaagina la rabin oo ay ujeed leeyihiin markay muxuu ahayaa dugsiyo inoo furayaan iyo markaynu ubadkeenna innagoo aan kantaroolin aynu ku sii daynayno aayadahaasaan keenay waxaan kaloo keenay aayado ka hadlaya inaanay gaaladu joojinayn la dagaalka inuu dugsiga soo booqday oo ardayda lagu sii dhex daayey oo ardayda lagu soo dhoweeyey munaasabad inta loo qabtay ardaydii muxuu ahaay la dhex dhigay oo uu khudbadeeyey oo uu taariikhdooda uga sheekeeyey oo aan idhi tusaalaha saasi may wanaagsanayn muuqaalladii baanu ku soo bandhignay projector ayaannu ku soo bandhignay muuqaallo caddaynaya ninkaasi inuu meeshaa galay oo ay ahayd inaanu gelin waxaannu soo bandhignay oo aannu caddaymaha maxkamadda keennay gabadh guddoomiye ka ah jaamacadda barwaaqo oo la yidhaha joy ciisa gabadhaasi waxaannu keennay twitter baannu keennay qoraal ay qortay kiniisaddii soo dirtay ay qortay oo ay leedahay waxaannu u ducaynaynaa joy ciisa oo somalilan u tagtay hawlo diimeed baannu keennay inkastoo kiniisaddii markii dambe ka saarto ay tidhi arrimo yani naguma shuqul lahaa gabadhani oo si khaldan buu qoraalku nooga baxay ayaannu keennay labada qoraalba waanu keennay waxaannu kaloo maxkamadda keennay gabadh la yidhaha Christina Bowden oo ka dhigta jaamacadda barwaaqo oo macallimada oo u ololaysa yani LGBT weliba qaybta tiida oo ah isxawilidda in rag iska dhigaan dumar iska dhigaan dumarku rag iska dhigaan sawiradeedii iyadoo muxuu calankii muxuu ahaayay dadka LGBTQ+ iyadoo ku xardhan baanu soo bandhignay maadaama annagana la eedeynayo annaguna waxaan idhi baltaana eega dee ayaannu nidhi maxkamaddaannu arrimahan idin kala hadlaya wax weeye waa waxaannu maxkamadda muxuu ahaayay aanu geynay